Macalinka kooxda kubadda cagta dekedaha Siciid Geesay ayaa labadii sano ee ugu dambeysay uu joogay kooxda waxa uu markaasi gaarsiiyay heer ay mar kale dib ugu soo laabato saaxadda isboortiga kooxda kubadda cagta dekedaha. Macalin Geesay muddo 2 sano ah ayuu kooxdan kula guuleystay 3 koob oo markaasi maxalli ah ee dalka laga ciyaaro. 3 koob ee dalka laga ciyaaray oo kula guuleystay ayaa waxaa ka mid ah sanadkan koobkii Janno Daa'uud ee dalka kaasoo kooxaha dalka ay ka qaadeen kooxda dekedaha. Macalin Geesay ayaana markaasi qayb weyn ka qaatay ku guuleysiga koobka Janno Daa'uud. Sidoo kale koobka xiga ee markaasi faca weyn ee dalkeena laga ciyaaro ayaa waxa uu yahay koobka Super Cup-ka dalka isagoona kooxdan mar kale koobkiisii labaad ee gacanta u geliyay muddadii 2 sano oo kooxda ku sugan yahay. Sidoo kale shalay ayuu mar kale gacanta u gashay koobka horyaalka Somali League oo markaasi xilli ciyaareedkan kooxda dekeda kula guuleysatay. Macalinka ayaa markaasi isbeddello waaweyn ku sameeyay kooxda dekedaha isagoo oo tayeeyay qaab ciyaareedka iyo sidoo kale ciyaartoyda uu macalinkan ku soo shartagay ay ahaayeen kuwo markaasi ay ujeedkoodu ahaa inay ku guuleystaan horyaalka Somali National League iyo sidoo kale tartamada dalka laga ciyaaro. Kooxda ayaa iyadana tartamada Bariga Afrika kaga qayb gashay walow markaasi laga soo reebay tartanka. Waxa ay soo bandhigtay ciyaar markaasi la jecleysto ay soo bandhigeen. Kooxdan dekedaha ayaa horay waxa ay ka mid ahayd naadiyada sida weyn horyaalka ugu xifaaltama kooxaha kuwa uu guulo waaweyn ka soo gaaray sanadihii markaasi ay kooxdan dhisneyd tan iyo markii ay noqotay koox diyaarsan iyadoona horey ugu guuleysatay 3 sano oo xiriir koob ah. Laakiin muddooyinkii ugu dambeeyay kooxdan hoos u dhac weyn ayaa ka muuqatay waxaana dib u soo nooleeyay Macalin Siciid Geesay oo markaasi ka mid ah macallimiinta waqtigan kooxda isbeddelka weyn ugu sameeyay. Sidoo kalena macallimiinta ugu muuqda horyaalka dalka Soomaaliya ayuu markaasi yahay. Muxuu mudan yahay Macalin Siciid Geesay maadaama kooxdan sanadkan uu kula guuleystay 3 koob oo waaweyn ee dalkeena Soomaaliya. Kooxda dekeda ayaa laga sugayaa in ay markaasi u sameyso maamuus iyo sidoo kale qandaraas kordhin haddii macalinkan waayihiisii weli ay ka faa'iideysteen iyaga oo horey Macalin Yucali sidaan oo kale fursad u soo martay isagoona 3 koob uu kula guuleystay ayaa markiiba diriishada ka baxay. Macalinkan waxa uu markaasi hadda uu ku socdaa guulaha uu Macalin Yucali horey u gaarsiiyay oo kale. Waxaan la sugayaa sanadaha kale soo socda in kooxdan ay markaasi guulo kale uu kula gaaro waayihiisa ciyaareed isagoo oo markaasi sanadkan ka duulaya in mar kale uu guulo kale ka gaaro xilli ciyaareedka soo socda. Maxaa laga filan karaa tartamada dhawaan ee laga ciyaari doono sida koobka Janno Daa'uud iyo sidoo kale tartanka Super Cup-ka oo la sugayo maadaama ay labadan ama kooxahan ay markaa ku loolamaan tartamada oo idil iyagoona sanadkan difaacanaya koobabka dalka. Ma laga yaabaa sanadka kale inay difaacdaan. Waxa ugu soo horeeyay koobka Janno Daa'uud oo dhawaan la ciyaari doono. Macalin Geesay ayaa laga sugayaa in xirfadiisa mar kale kooxda gacanta uu geliyo tan iyo markii uu yimid isagoona koobkii ugu horeeyay la qaaday uu ahaa koobka Janno Daa'uud. Sanadkan waxa markaasi la filayaa in mar kale dardar xooggan uu ku soo galo tartamada oo idil oo kooxaha mar kale uu doonayo inuu kula garaaco koobka Janno Daa'uud oo markaasi sanadkan kooxaha diyaar garow ugu jira maadaama horyaalka uu dhamaaday. Sidoo kale haddii ay u suurtoodo inuu koobkan ku guuleysto macalinkan ayaa weli waxay fursad siinaysaa kooxda dekedaha oo hanka leh inay ku guuleystaan tartamada dalka Soomaaliya laga ciyaaro. Waxaan u harsan hadda 2 koob oo markaasi kala ah koobka Super Cup-ka iyo sidoo kale koobka Janno Daa'uud. Laakiin waxaa soo horeeyay koobka Janno Daa'uud kooxdii qaada koobka Janno Daa'uud iyo sidoo kale kooxda horyaalka qaada ayaa markaasi loo dhigaa koobka Super Cup-ka. Haddii sanadkan naadiga markaasi dekeda ku guuleysato Janno Daa'uudka iyo horyaalka
Super Cup-ahana iyada ayaa lahaan doonta maadaama kooxda markaasi tahay koox ku guuleysatay dhammaan tartamada oo idil ayay noqon doontaa haddii isbedel muuqda ay markaasi la timaado sanad ciyaareedka.